caadisan waxa laga yaabaa inuu aabbaha xanuunsan yahay waxa laga yaabaa inay hooyo kadeed badan hayso waxa laga yaabaa in familigu faqri la nool yahay oo culays uu ka haystay noloshaada aad furnaamiso waxa laga yaabaa waxbarashada inaad ka fikirayso inaad dhamayso right now waxa laga yaabaa in dhaqaale xumo jirto waxa laga yaabaa qofka kuugu muhiimsaneed u haysato role model inuu arkin waxaad qaban karto waxaad ku hamiyeysiin waxaad ku fikiraysiin waxaad hadda niyadaada ku weyn ma fahmayo aabahaaba laga yaabaa ma fahmayo hooyadaaba laga yaabaa ma fahmayo saaxiibkaaba laga yaabaa ma fahmayo macallinkaaguba laga yaabaa ma fahmayo saaxiibadaad raacday iyo jaarkiina iyo community aad la nooshahay they don't know ma arkayaan adu waxaad arkaysaa laga yaabaa hold on sii hay sii wad ha joojin I know just because I cried that day and I cried this day you're going to get it You are going to get it. It's possible. Wahum, wabuqalanta, wad helaysa, and God is on your side. Waxaad leedahay ilaah dadaalka aan hakran. Waxaad leedahay ilaah og intaad shaqaynayso oo ku siinayo waxaanad weydiisan oo ka weyn waxaad weydiisanayso. It's true. Waa run in intaad isku malaynayso inaad heli kartaa ay suuragal ku tahay. Believe in yourself. Hold on one more day. See how you clear. One more day, one more week, one more year. See how you clear. Labani baa sheekaysta leeyahay. Waxa adkaysiga la yiraahdo iyo sheeg buuyo. Markaasuu ku okay, gacantaada, fartaada soo dhaxgeli gowsayga. Aniguna fartaadan gowsayga soo dhaxgelinaya. Sidii bay sameeyeen. Fartiibu gowskiisa dhax gashaday. ninkii kalena fartiisiibu gooska dhex gashaday waa la isqaniinay waa la isku xayay waa la isku xayay waa la isku xayay fartii baa dhiigtay dhiigii baa labada ka soo dareeray labadii ninba waa la isku xayay mid baa yiri bes I'm done iga daa please iga soo saar markaas yiri yes sir one more second haddaad sii joog lahayd one more second just one more second haddaad sii joog lahayd anigu kula dareen baan ahaa one more second adaa iga horreeyay that's it just keep it up one more minute hal minute oo kaliya wad just one more minute halka dadkoo dhan ay joosteen sii yara joog maalin kaliya meesha dadku ka quuseynayna arkay rajo sii yara joog one day one year one week just one more step I know it's hard محمد علي كلاي baa wax la weydiiyay markaad setup-ka sameynayso jimicsanayso ee soo jimicsanayso ma tirisaa markaas uu yiri ma tiriyo ilaa ay bilowbaan inay daawacaan I don't count unless it hurts markaan dareemo inay xanuuninayaan markaasaan tiriyaa inta kale aanay xanuuninayn ma tiriyo brother my sister my brother one more day waxaan arkay internet-kan soo dhaxeeya waxaan arkay sawir maskaxdayda aad ugu dhigay sawirkaas wuxuu ku tusayaa laba nin oo qodaya diamond labadii markay qodeen ayuu midkood joojiyay isagoo hadduu hal mar oo kale ku sii dhufan lahaa sabaradu ku qaraacay hadduu ku dhufan lahaa uu gaaraya the picture shows inuu hal mar oo kaliya sii garaaca kaliya uu diamondkii ku taabanayo wuxuuna ku tusayaa dhinaca kale nin hadda bilaabaya oo aan joogsanayn my brother and my sister ma ogid waxaad ku hamiyeysaa time-ka kaaxiga ma ogid waxaad ku hamiyeysaa intuu ku jiro you don't know waxaad ka fikiraysaa ama waxa kugu weyneed aad ka u dareemayso caadisan waxa laga yaabaa inuu aabbaha xanuunsan yahay waxa laga yaabaa inay hooyo kadeed badan hayso waxa laga yaabaa in familigu faqri la nool yahay oo culays uu ka haystay noloshaada aad furnaamiso waxa laga yaabaa waxbarashada inaad ka fikirayso inaad dhamayso right now waxa laga yaabaa in dhaqaale xumo jirto waxa laga yaabaa qofka kuugu muhiimsaneed u haysato role model inuu arkay waxaad qaban karto I know something some way somehow somewhere sometime ayaa laga yaabaa inay yar khaldan yihiin waxaas inay khaldan yihiin ha u fasirin inaad adigu khaldan tahay how معنيسن إني تهاي عديك قف خلطانين هذا ظروفه خلطانين don't so this all comes now to ماذا حكوا كمان سيادة حواركتا سيادة حقيمسا سيادة الدنيا ده واركتا سيادة هذا جزء واركتا all of that entire كمامو
intaa yare madaxaaga haddaad ka adkaato you're going to win. Attitude is everything. madaxa kugu rakiban iyo sidaad u fikiraysa iyo sida maskaxdaada u qorshaysan tahay it's everything. laba qof baa bas wada fuushan labada baska wada fuushan dhinacan ka jooga wuxuu arkayaa jar laga dhici karo oo buuraha dhaadheer ee basasku maraan jar weyn oo laga dhici karo arkaya. The other one sees a beautiful mountain wuxuu arkayaa buur qurux badan oo wada dooga. They are on the same bus. waxa laga yaabaa one of us inuu arkayo qaybta khaldan waxa dhiman waxaan suuragalka ahayn waxaan la heli karin waxa adag baa laga yaabaa ka kalena uu arkayo waxa quruxda badan leh fursadaha jira sida uu suuragal yihiin cidda caawin karta iyo waxa aad u sameeyay suuragal kara. It's just a matter of focus. waa indhahaaga xaggaad ku jeediso. So waxaan kaa rabaa adiga inaad wax walba xagga fiican ka aragtaa. It's not easy. maaha un qof walba ma arko. waxay u baahan tahay work. shaqay u baahan tahay. shaqadaasina waxa weeyaan number 1 inaad shaqo dadka erido. dadka shaqada ka eriyaysana waxa weeyaan naysayriska dadka yuusa ee cala. You know one funny thing ma taqaana qofka calaalka jecel wuxuu ugu jecel yahay adduunyada qofka calaalka ka dhigaysta. naahib laayo meesha waxa ma yaalaan wallahi waa runta. meesha waa lagu jabay cibaado waa intii ka tashato wallahi waa runta anigu basaasa. qofka calaalka jecelkii adduunka ugu jecel yahay qofka ka tiriya ee dhaha wallahi waa runta. qofkay ka go'an tahay ay ku aaminsan that I'm either going home or I'm either going home. qofka go'aankiisu ka yahay warano ama gurigeyga soo fadhiisanaya waa iska daynaya waxba ma qabanayo waxba iskuma dayayo waxba ma oranayo cidna ma weydiinayo. I'm not going to do anything. aan waxba ma qabanayo gurigeyga iska fadhiyaya ama I'm going hard. waxa adiga diidaysaan isku dayaya waxaad ka baqaysaan isku dayaya waxaad ka xishoonaysaan u bareeraya waxaad adigu isleedahay ma suuragal aan aaminaya inay suuragal yahay. I'm going hard. dhinaca adag ee qadaad ee foosha xun leh ee dadku diidayaan baan istaagaya because that's where life starts. qofka go'aankiisu ka yahay is going to live life.